bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan wararka xulka wararka qodobada aan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonay go-aano ka soo baxay shir amniga muqdisho looga hadlayay oo xalay ka dhacay gobolka banaadir halkuu ku dambeeyey shirkii uu iclaamiyey madaxweyne xaaf inay kasoo qayb galaan madaxda maamul goboleedyada saanad ciidan oo laga xaday xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya xog ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne xaaf oo xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyay gobolka Mudug qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo lacago cusub oo la yaab leh lagu soo rogay madaxweyne xaaf iyo maamulkii ahlu sunnah oo khilaaf cusub soo kala dhex galay warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo amisom ku dhex maray qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo dhulgariir ka dhacay waddanka New Zealand intii aad daawateen saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn ee xulka wararka haddii aad ku cusub tahay daawada waxaan ku xasuusinayaa inaad daado subscribe gambaleelkana aad saarato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaalada aan soo gelino waa 9 bisha 6 ee June sanadka 2019 oo diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan shir looga hadlayay amniga guud ee caasimadda Muqdisho ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana kulankaasi shir gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Yarisow kulanka waxaa ka qayb galay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya taliyaha ciidamada booliiska gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo saraakiil kale waxaana la iska wareysay xaaladda amniga caasimadda waxyaabaha kulankaasi looga hadlay ee diiradda lagu saaray waxaa ka mid ahaa sugidda amniga isdhexgalka bulshada dirisaynta iyo horumarka caasimadda waxaana ka soo baxay talooyin kala duwan go-aanada ka soo baxay kulankii amniga caasimadda looga hadlayay waxaa ka mid ahaa in la sii xoojiyo adkeynta amniga caasimadda sidoo kalena waxaa la isla gartay in la kordhiyo howlgallada ciidamada dowladda ay ka sameeyaan xaafadaha qaar ee Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa Muqdisho Engineer Cabdiraxmaan Yarisow ayaa kula dardaarmay saraakiisha ciidamada in la dardar geliyo sugidda amniga caasimadda xilli mararka qaar ay ka dhacaan falal ammaanka lidiga ku ah madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa toddobaadkii hore iclaamiyay shir madaxda maamul goboleedyada ay ka qayb galayaan oo ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug ma jiro wax jawaab ah oo ilaa hadda madaxda dowlad goboleedyada ay ka bixiyeen qoraalka ka soo baxay dhanka maamulka Galmudug ee ku aadan in shir wada tashi ay kaga qayb galaan magaalada Dhuusamareeb wararka xulka wararka uu helayo waxa ay sheegayaan in ka hor shirka madaxda maamulka Galmudug uu tagi doono magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya halkaasi oo la sheegay in uu kula kulmi doono mas'uuliyiin kala duwan sidoo kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxweyne xaaf uu gacanta ku dhigay ku dhawaad 3 milyan oo dollar oo loogu talagalay mashaariic laga hirgelinayo deegaanada maamulka Galmudug safarka madaxweyne xaaf uu ku tagi doono Nairobi waxa uu dhici doonaa shirka ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyadoo oo aan la ogeyn in ay ka qayb gali doonaan iyeen kale madaxweyne xaaf iyo dowladda Soomaaliya waxa ka dhaxeeya xiriir aan wanaagsaneyn waxaana xaaf uu diidan yahay in muddo xileentiisa uu dhamaado isla markaana doorasho ay dhacdo bisha July ee sanadkan dowladda Kenya oo khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo dowladda Soomaaliya ayaa markan saameyn ku leh dhaqdhaqaaqyada maamul goboleedyada dalka waxaana ay gashay kaalintii Ethiopia ay ku jiri jirtay saraakiil ka tirsan ciidamada koofiya casta ee ilaalada wasaaradda gaashaandhigga ayaa caasimadda saraakiil ka tirsan ciidamada koofiya casta ee ilaalada wasaaradda gaashaandhigga ayaa xaqiijiyay in habeenkii Khamiisii ay dhaaftay loo dhacay keedka sanadka waa keedka saanada ciidamada ee ku yaala wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya isla markaana laga qaatay agabyo badan agabyada laga qaatay keedka saanada ciidamada ayaa lagu sheegay rasaas qoryo fudud iyo dharka ciidamada waxaana arrinta la aaminsan yahay inay ka dambeeyaan xubno sare oo ka tirsan taliska ciidamada wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya
dhowr qof oo uu ka mid yahay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dhowaan tababar dalka Turkiga kaga soo laabtay ayaa la sheegay in jimcihii loo xiray waxaana lagu eedeeyay in raggaasi ay ka dambeeyeen ama ay wax ka ogaayeen falkii dhacay. Xulka wararka waxa uu helayaa war ku saabsan in ay baahisay magacyada ragga eedeysanayaasha ah ee ay la soo wadaageen qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga. Raggan lagu eedeeyay oo ah kuwa dhalinyaro ah ayaa tababar fiican ku soo qaatay dalkaasi Turkiga iyo xerada tababarka Turkiga ee Muqdisho uu ku leeyahay, iyo sidoo kale qaarkood waxa ay uga tirsanaayeen horay ciidamada gaarka ah ee Kumaandooska Soomaaliya. Xubnaha aan la hadalnay waxa ay noo xaqiijiyeen in marka laga reebo sarkaal la tuhunsan yahay ee la qabtay ay baxsadeen ciidamo kale oo la sheegay in shaki looga qabo in arrintan ay ka dambeeyeen. Falkan ayaa fadeexad ku noqotay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo ilaa hadda aysan ka socon baaritaano adag oo la xiriira sidii arrintan ay uga daba tegi lahaayeen. Wararka keelano magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in madaxweynaha Galmudug uu sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis. Ahmed Ducaali Xaaf ayaa lagu soo waramayaa in xilkii uu ka qaaday gudoomiyihii gobolka Mudug isaga oo magacaabay gudoomiye cusub oo gobolkaasi uu yeelanayo. Cabdiraxmaan Cali Diiriye ayaa madaxweyne Xaaf waxa uu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug, waxaana Masar Diiriye laga sugayaa inuu qabto shaqooyin aad u fara badan. Madaxweyne Xaaf ayaa warqadiisa magacaabista waxa uu faray hay-adaha amniga ee gobolka Mudug in ay la shaqeeyaan gudoomiye Cabdiraxmaan. sidoo kale hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ayuu faray madaxweyne Xaaf inay si dhow loo shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi loo soo magacaabay. qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaa ka bilaabatay arrin la yaab leh kadib markii sida la sheegay lagu soo rogay lacago taakulayn lagu sheegay degmooyin ka mid ah Shibis, Shangani iyo Axmar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxaa shacabka degan guryaha qaarkood loo gooyay waraaq lagu weydiisanayo lacagta. dadka deegaanka ee degmooyinkan ayaa xulka wararka u sheegay inay u yimaadeen gudoomiye waaxidyada qaarkood kuna amar bixiyeen inay bixiyaan qarash taakulaan lagu sheegay taasoo amar lagu yiri inay tahay. gudoomiye waaxidka yimid waxa uu ii sheegay inaan bixiyo qarash, waxa uu ii raaciyay inay tahay taakulaan, waxaana uu sheegay waxaan u sheegay inaan bixinaynin taakulaan amara weligeena aanan maqal, ayuu yiri qofkaas oo la hadlay xulka wararka. markii ugu horeysay ee dadka reer Muqdisho laga qaado lacago lagu sheegay in ay tahay taakulaan oo aan lahayn macno ama shaqo looga qabanayo. maamulka gobolka Banaadir oo aan la xiriirnay ayaa noo sheegay inaysan waxba ka ogeyn arrintan, lana xiriiri doonaan gudoomiyayaasha si ay arrintan wax uga weydiiyaan. warar dheeraad ayaa laga helayaa dagaal khasaare geystay oo duleedka degmada Jalalaqsi oo gobolka Hiiraan ku dhex maray ciidamada Djibouti oo ka mid ah AMISOM iyo Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen kolonyo ay la socdeen ciidamada Djibouti oo maraya duleedka degmadaasi, waxaana la sheegay in halkaasi dagaalka uu ku qabsaday ciidamada AMISOM uu socday ku dhawaad 30 daqiiqo sida ay markhaatiyaal xulka wararka ay xaqiijiyeen. waxaa jira khasaaro kala duwan oo labada dhinac soo gaaray intii dagaalka uu socday, waxaana wararkaan heleno ay sheegayaan in tiro ka mid ah askarta Djibouti ay dhaawacyadu ay soo gaareen, waana 6 askari. ayeeshee Al-Shabaab baraha internetka ay iyaga taageero war ay ku faafiyeen waxay ku sheegteen in 13 askari ciidamada Djibouti dhimasho iyo dhaawacba ay soo gaarsiiyeen. saraakiisha ciidamada Djibouti ee howlgalka AMISOM weli dhankooda kama aysan hadlin dagaalka duleedka Jalalaqsi ay kula galeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. wararkan waxay sheegayaan aan hadda helayno in xaaladda ay tahay mid degan, isla markaana deegaankaas ay ku sugan yihiin ciidamada Djibouti iyo kuwa dowladda Soomaaliya. ugu dambeyntiina dhulgariir cabirkiisu uu gaarayo 5.5 magnitude cabirka dhulgariirada ayaa ku dhuftay wadankaasi New Zealand maanta oo Axad, waxaana la sheegayaa in durbaba uu saameyn ku yeeshay dadka deegaanka.
saacada xilliga maxalliga ee wadankaasi 3:13 daqiiqo oo xilliyadii dhabar ah ayuu ku dhuftay dalkaasi waxaase waaxda gurmadka degdega ay wadaan samata bixinta dadka ilaa hadda lama soo wariyeen dad waxyeelo ay ka soo gaartay hay'adaha dawladdu ayaa ka sii digaysa in goobo kale oo hor leh dadku ay sii baneeyaan oo ay ku sheegtay in suuragal ay tahay dhul gariirku inuu gaaro ilaa hadda waaxda gurmadka degdega ayaa ku howlan nadaafada goobaha ay daaruhu ay ku soo burbureen sidoo kalena geeduhu ay ku soo dhaceen waanaga intaa saaxiibayaal warkii aad kala socoteen xulka wararka waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warkayaga waan ku xasuusinaynaa haddii aad ku cusub tahay markale daawadin aad aad subscribe gambalelkana aad furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaalada xulka wararka